shirka ducada ah ayaa la bariga ah ee qabsadeen Cabdalle Cumar Beyle oo ka tirsan beelaha Sacad Yunis ayaa lagu soo gabagabeeyay dooxada fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana xidhitaanka shirkani ka soo qayb galay mas'uuliyiin uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse bahda dhaqanka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay cuqaal kala duwan kuwaasi oo soo dhaweeyay shirkani ducada ah iyo doorashada caaqilka Bajihaad oo loo doortay caaqil Mustafa Axmed Dhukaal oo dhawaan la caleema saari doono taliyaha ciidanka qaranka gobolka Sanaag taliyaha qaybta booliska gobolkaasi ayaa iyaguna soo dhaweeyay shirkani iyo qodobada ka soo baxay iyagoo bulshada gobolka Sanaag kula dardaarmay ilaalinta nabadgelyada طلبكان idin dalabnay anaga soo ajibteen martiqaadka Allah idinka abaal mariyo dhamaantiin waxaan inta ku darayaa talabtayay bafarooyo iyo tolkay Jibriil Xasan baasha waa kala midqshaalayseen olaad halka wargacmaha isku geeya imika ciidana ka xig waxaanu halka xafladda u qabanay duco Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu noo aqbalo inta markaan ka tago sidii waayeelkii hore sheegeen nabadda eelafoy waxaan codsanayaa bafarooyo iyo Jibriil Xasan iyagoo gacmaha haysta oo wada socda kala socon in ay eelafoy tagaan Cumar Beyle waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kale oo soo dhaweynayaa saaxiibkay Mustafa Axmed Dhukaal Muuse isna waxaan ku leeyahay ku soo dhawow bahda dhaqanka ka reer fadhigaab ahaan annagu gacmaha haysanaa dadku waa isku mid deegaanku waa isku mid isku si baa loo fikirayaa isku si baa nabadgelyada loo wada ilaalinayaa idinna waxaan idin leenahay noogu soo duceeya qolyaha walaalihiina ee ceelfoyn الله وين واحد كأود لو إحنا وبرينا إلهي دبك كقبوتشي إن إلهي دبك كقبوتشي عامل لها إلهي دبك كقبوتشي عامل لها الشركة أي قبصدين عبد الله عمر يا الله برجع أدبن أبارجينا أدبن يسود ويننا شركة أي قبتين يوحي كصوب بحيبة وهو وينا وحيد نبتقليو iyo caaqilka oo ay Mustafa maanta u caleema saareen Bajihaad aad baan u soo dhaweynayaan oo ka wakiila uqaashi Jibriil Xasan in alla baridaan oo Ilaahay ka baqdaan ay ku hamideen in doorasho sax ah oo aan muransanayn oo caaqil aad doorataan Allah idinka tusaysiyo waa marka koowaad aad baan u soo dhaweynaynaa doorashada Mustafa Axmed Dhukaal aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay aqal soo dhawow allana markaasi hawsha ku fududeeyo ama aan iraahdo Cumar Beyle si kale kuma garataan waa reer sugullaha iyaga sida la sheegay haddaad diintana inuu hogaamin jirteen oo laydinku yaqaanay haddii alle xagga dhaqaalahana inuu hogaamin jirteen xaggii dhaqankana haddaa ku darteen waxa la rabaa inaad si weyn u adkaysaan maanta arinta eelafoyn mar walba laga dhawaajiyay anigu waxaan leeyahay dadka deegaanka leeyahay biyadiisa Sacad Yunis sidii uu suldaanku sheegay waxaan leeyahay gacanta qabtaan Cabdalle Cumar oo alla bariga leh anaguna Nuux Cumar baan nahay maana kale alla bari jirin waa u mahad celinaynaa maanta nabadda ay ka hadleen iyo sida ay soo dhigeen Ilaahay baa mahad leh waa u mahad celinaynaa walaalka iyo weeyaan waxa ay qabtaan ee wanaaga waanu la leenahay si fiican bay runtii u soo agaasimeen waxaynu joognaa madal wacan oo la isugu yimid Rabbi bari iyo duco oo ay noo qabteen raaska iyagii Cabdalle Cumar walaalkayo annaguna aanu qayb ka nahay ayaa qabtay shirkan iyo alla barigan annaguna aanu goobjoog ka nahay marka waxa weeyaan ninkaana iyagu soo xulay dhammaanteen marka waxa weeyaan alla bariga iyo ducadaas ka soo qayb galay Yunis haddaan la kala saarin ganacsigii ugu horeeyay iyaga gacanta ku hayay baabuurta iyo bakhaarada iyo dukaamada dad badan u malan maayo inay waqtigaas soo gaadheen iyadoo halkan ay ka shaqaynayaan baabuurtii Nuur Barre makhaadihii ay ka furan yihiin Berbera ayaan anigu soo gaadhay
waxaan soo gaadhay iminkaba joogta inay hogaaminayeen diinta geyigan aw cali aw nuur oo aan anigu soo gaadhay wakhtigaa iyadoo xertiisii sii jirto raggii sii jiro diintii socoto oo halka kan taa ah iminka ku arkaysanee sheekh albaani wasiirka ka soo jeeda waxay tahay diintii cabdalle cumar ay dalkan keeneen iyo waxbarashadii dad badani ka faa'iidaystay ahaayeen beeshan waxay caan ku ahayd waxay ahayd beel laga guursado oo rag reerka maxamuud garaad la yaado iyo beesha muuse abokor reer laga doono hablahooda la doono oo la yaqaano oo ragga ay dhaleenna talada loo dhiiban jiray waxay dhaleen rag badan oo la garanayo waa af xakame waxa weeye warfaa cali waxa weeye cartan boos rag caynkaas ah oo xoog leh ayaa ka soo jeedo cabdalle cumar dhaleen baa jiray waxay ahayn reer ku suntan nabad iyo dadwad iyo ururin iyo hagaajin ayay ahaan jireen maanta hadday caaqil hoosaad bajahaad ay u doorteen reer cabdalle oo mustafa u doorteen waxaan u malaya waa nabaddii aaggan ayaa soo afyeelatay waxaa laga hadlay colaadii ceelaf weyn iyo aaggan ka dhacday oo ilaa iminka ceelaf weyn socota oo erga badani u fadhiyaan oo hawl badani ku baxday oo lagu ceeboobay oo lagu magac beelay ilaahay baanu idinku qaadaynaa inaan waxba la'aanaan kala hadhin waxa ogaataan marka la yidhahdo reer ceelaf weyn wallaahi waa ka xishoonnaa inaanu ceelaf weyn sheeganno markaanu galbeed joogno ceelaf weyn inaanu sheeganno waa ka xishoonnaa waayo waxay noqotay meel ku suntan oo ku calaamadsan shar iyo dagaal iyo dhibaato ayay noqotay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu wakhtigan aynu joogno ka dhigo wakhtigii nabadgeliyo laga gaadhi lahaa beesha sacad yoonis iyo beesha biciide ee halkan wada dega mid caama in la helo aad iyo aad baan abtiyada soo dhaweynaya waxaan qudhoo kaga cabanayaa abtiyaday reer cabdalle qaadhaankii baanay weydiin lagu qabanayey aanay weydiin ka dambe ay weydiiya oo bilaahi tawfiiq marka hore horta waxaan ilaahay ka baryayaa xilkaa maanta haddii laba kuu rooyahay tolka ila soo doontay ilaahay waxaan ka baryayaa marka hore inuu igu asturo ninaan ilaahay oo aan asturin ma asturmo ilaahay waxaan ka baryayaa mar labaad iyo mar saddexaad baa in ilaahay igu asturo ayaan ilaahay ka baryayaa waxaaynu halkaa kala tagnay dadkeenna isugu yimi dhammaanteen ballan baynu qaadnay mid ilaahay baynu gallay taas oo aynu gallay waa taa walaalaheen haysata inaynu ka qabanno waxaynu ka qaban karayno kolley haddeerta waa loo howlan yahay waana lagu jiraa suldaankuna ballan buu qaaday mid buu bilaabay isagu taana aan la qaadna maaleen dad inta ugu xigta meesha cid kasta oo kaleba timaadaba inta ugu xigtin baa ugu muhiimsan nuxurkii waxa qaatay oo dee si fiican dhagaha loogu weeleeyey raggii hadalka hore ka qaatay oo salaadiinta iyo ugu dambeeyey wasiirka sheekhayaga sheekh albani waxaan leeyahay horta inta allah inagu anfaco in lagaga tuntona ma wanaagsana intaa hala weeleeyo baan marka ugu horeysa leeyahay runtii wax wanaagsan baa ka dhacay madasha ilaa madaluhu waa kala duwan yihiinoo qaar baa dee dagaalka aynu ka digan in loogu arrinsadaa laakiin kani waa meel lagu ducaystay nabad la isugu dardaarmay hadal wanaagsan oo qiimali ka baxay wax badan la isxasuusiyey ilaahay hayna garansiiyo beesha halkan ku allabariday ee cabdille cumar beyle oo ka tirsan beelweynta sacad yoonis oo allabarigooda ay isku jamacsadeen muraadkiisu ahaa in ay waalidiintiina u duceeyaan ilaahay ay baryaan danaha ay leeyihiinna mid caama iyo mid khaasana ay iska waraystaan go'aamadii ay soo saareenna halkanaynu ka maqallay hadday tahay nabadda oo ay ku nuxnuxsadeen oo iyo deris wanaagga ay shaaciyeen inay
walaalahooda kale ay dirisuuna kula dhaqmayaan waxayna aad iyo aad uga mahad sheegteen reeraha isku deegaanka yihiin ee beesha Biciide iyo Maxamuud Garaad oo intaba dadku ay wada yaaliin imikaanada waxaabay isu diyaarinayaan inay dalka madaxweyne ka noqdaan reerka Muuse Bokor la yiraahdaa dee kolle waa reerkii aynu wada dooran lahaynuune hadday fara noqoto iyo hadday noqoto maanta waa waqtigoodii waana iska iman doontaa xilligeeda mar waa saaraynaa kursiga haddii alla ka dhigo kowdhe dheeri ninuu dhow waa laf kala baxay dee waynu la leenahay waxa la yaalo wixii ay helaanna waynu la leenahay uun waxayna inagaga ficinaayeen habar lamaan inay wada dagaal galaan oo wada duulaan mooyaane weli wax dhexdooda dagaal ka dhex rida raggaasi may lahayn ragga maanta joogana ayaan darray ku tahay anigu waxaan leeyahay dariskiinana ha ku duulinina idinkuna ha isku duulinina ilaahay ka baqa qoriga dhulka dhiga war caqliga ka shaqaysiiya war halkaana aan ku dareerno oo dadka inoo yimi ee weliba aan u mahadnaqayno ee xukuumaddu u horrayso ee ay maaragtay qorhoraadka ka yihiin waxa weeyaan dhaqankii iyo cimaamaddii u sarraysay habar jeclo oo dhan iyo garxajis oo dhan iyo Somaliland inteedii kale ayaa maanta celaf way fadhiya u duceeyeen ilaahay ku guuleeyo dhankooda waxa iyaguna halkaasi hadalka u kala dambeeyay xildhibaano ka tirsan degmooyinka Garadag iyo Celaf Weyn iyo sidoo kale degmada Xudun ee ka tirsan gobolka Sool maayirka degmada Garadag oo isaguna halkaasi ka hadlay u baarigaya shirweynaha halkan ka dhacay ee waxa weeye laguna doortay caaqilka Bajahaad aad iyo aad baan shirkan u hambalyeynaya una baarigaya beesha qabsatay shir khayr qaba midho fiican ka soo baxeen aad baan ugu hambalyeynaya caaqil Mustafana waan ugu ducaynayaa xilka loo doortay caaqilka halkan lagu caleeba saareen waxa weeye waa gudoomiye ku-xigeenkaygi weeye waa ninkii nabadayga la shaqaynayay waa ninkii isagoo aan cidina caaqil ka dhigin buu u shaqaynayay nabadda waxaan islahaayo anigu eegaya beesha Cabdalla Cumar waa Garadag waa ka badhbadhna waa leeyihiin alla berigooda waxay ku qabanayaan Garadag laakiin geedkaas ay keenayaan isma lahayn aan soo dhaweynaynaa taageersanahay kula shaqaynaynaa qodobada dhaxalgalka ah ee shirka ka soo baxay iyo go'aamada ka soo baxay oo runtii ah go'aamo masiiriya oo deegaanka iyo degmada dhammaantood wada dana in aanu shirka dambe ee caaqilka lagu caleema saarayo insha Allah haddii Ilaahay nafteeno daayo aanu martiqaadka anagu dhigi doono aanu murana gali doonin maadaama nasiibkuna siiyay si fiican naloo sheegay shirkani oo socday muddo 3 cisho iyadoo laga soo saaray qodobo 5 gabagabadii shirkana waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse kaasi oo soo dhaweeyay qodobada shirkani ka soo baxay isagoo bulshadana ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada qodobka koowaad waxa weeye shirka ka soo baxay Cabdalla Cumar Beele wuxuu u dardaarmayaa dhammaan muslimiinta inay ka cabsadaan Ilaahay kana fogaadaan wixii shariicadu inaga reebtay qodobka labaad shirka iyo alla bariga Cabdalla Cumar Beele wuxuu xoojinayaa nabadgelyada wada noolaanshaha deegaanka saddex beeshu waxay taageeraysaa dadaalada nabadeed ee ay xukuumadda ergooyinka dhaqanka ee isxilqaamay ka wadaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Celaf Weyn wuxuuna ugu baaqayaa beelaha dhibaatada soo noqotay dhaxtaal inay u qaataan oo ay fuliyaan talooyinka go'aamada xukuumadda iyo ergooyinka nabadda beeshu waxay u soo xushay inuu noqdo caaqilka Bajahaad caaqil Mustafa Axmed Dhunkaal beeshu waxay u mahadnaqaysaa dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay alla bariga Cabdalla Cumar sida quruxda badan ee inooga soo ajiibeen martiqaadkii aan u fidinay iyadoo qof kasta oo ku maamuusayno mansabkiisa iyo maqaamkiisa ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Sanaag
mudane axmed cabdi muuse aad iyo aadna waanu idinku hambalyeynaynaa qodobada wanaagsan ee dhaxalgalka ah ee aad soo saarteen waxay ahaayeen qodobo laydinka filayey sababtoo ah bulshadu way saadaalisaa wayna taqaanaa nabadda gobol Sanaag gaar ahaan qaybo ka mida waaxaheenna ceelaf weyn looga wado taageerada iyo wanaagga niyad wanaagga ka muujiseen ee shirkiina ka soo baxay waa idinka mahad celinaynaa maamul ahaanna waxaanu jecelnahay in aydan erayga ku daynay aad soo gacan gelisaan sababtoo ah fidmada ceelaf weyn ka taagani in badan bay soo noqnoqonaysay haldoor badan baa ku leeday hooyooyin badan baa ku goblamay aabbayaal badan baa ku goblamay dhalinyaro badan baa waxbarashadoodii ka saaqiday fidmaa dhacday fidmadaa dhacdayna dawada koowaad waxaa u ah labada reer ee ehelka u ah ee maxaanku idhaahdaa ka soo hadhay labadaa qoys ee dagaalamaya inaynu dhammaanteen gacanta isu qabsanno